Assalaamu calaykum. Ilbaxnimadii Baabil. Maxaa looga jeedaa ilbaxnimadii Baabil? Yaa se aasaasay? Halkayse ayay ka soo unkantay? Ku soo dhowaada mawduuceena maanta. Markaad maqasho Baabil, waxa markiiba maskaxdaada ku soo dhacaysa aayadda 102 ee suuratu Al-Baqara. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 18,000 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga ayay ka soo ifbaxday ilbaxnimadii Baabil ee weyneyd waddanka Ciraaq, iyadoo ah mid ka mid ah ilbaxnimooyinkii caalamka soo maray kuwa dahsoonida badani ku jirto. Mid ka mid ah waxay ahayd Baabil, caasimadda waddanka labada webi ee dhulka Ciraaq, waxayna dhacdaa webiga Furaat, iyadoo 88 kiilomitir koonfur kaga beegan caasimadda Ciraaq ee Baqdaad, iyadoo soo ifbaxday marxaladdii saddexaad ee boqortooyadii Oor, taasoo ahayd boqortooyadii ka talin jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray dhulkii dadka kibirka badan. Intaa wixii ka dambeysayna waxay noqotay caasimadda deegaanka koonfureed ee waddanka labada webi iyo qayb ka mid ah boqortooyadii Aashuur oo dhacday waqooyiga Ciraaq, waxayna si rasmi ah caasimad u noqotay kadib markii uu gudaha u galay Xamuuraabi, kuna magacaabay caasimadda deegaankaas ku hareeraysan oo idil. waqti fiisan sanadkii 1792 ilaa 1750 miilaadiga ka hor, isagoona ahaa aasaasihii boqortooyadii Baabil. Intaa kadib, mowqiceeda oo ahaa mid istaraatiiji ah ayaa u sahlay inay noqoto goob siyaasadda iyo ganacsigaba ka horreysa. Halkaas ayayna ka soo unkantay ilbaxnimadii Baabil ee weyneyd. Bulshada ku nooleed waqtigaa Baabil si sax ah looma garanayo tirakoobkooda, balse waxaa taariikhyahanadu ku qiyaasaan 10,000 ilaa 50,000 oo muwaadiniina, waxayna aqoon dheer u lahaayeen xisaabta, taasoo u sahashay inay sameeyaan kanaalo biyood iyo inay dhisaan biyo-xidheenno waaweyn. waxay kaloo aqoon u lahaayeen xirfado kala duwan, kuwaasay ka mid ahaayeen magdinta hargaha iyo samaynta weelasha dhoobada ah. waxa kaloo ay lahaayeen kala dambeyn qaanuuneed iyo maxkamado xukunka u fuliya si waafaqsan qawaaniintii Xamuuraabi. waxa uuna ka koobnaa mujtamacu 3 tabaqadood, kuwaasoo u kala qaybsan siday u kala muhiimsan yihiin, iyadoo qofka muwaadinka xorta ahi ahaa dabaqadda koowaad, helayana xuquuqdiisa oo kaamila, waxaana soo xigay kuwa dabaqadda dhexe ah kana xuquuq iyo xorriyad hooseeya, waxaana ugu hooseeyay dadka addoomaha ah. waxayna ahaayeen dhammaan dabaqadahaasi qaar u hoggaansama qawaaniinta Xamuuraabi, balse dhinaca nolosha qoyska iyo xafladaha guurkuba waxay ahaayeen kuwo qaab dhaqameed ku dhisan, kuna dhow habkaynu iminka naqaano. may ahayn dhismayaasha Baabil dhismayaal caadiya, balse waxay xambaarsanaayeen siro iyo calaamado, taasoo aanan jirin cid fahamtay ama fasirtay ilaa amintan aynu joogno. agabka dhisme ee fudud ee ay haysteen waqtigaa hore ee qadiimka ah markaynu eegno, haddana waxay dhiseen dhismayaal aynu inagu ka caajisayno maanta dhisideeda markaynu adeegsano qalabkoodii koobnaa, taasoo ina tusaysa inay inaga horumarsanaayeen aqoon ahaan iyo ilbaxnimo ahaanba. qarnigii 7aad ee miilaadiga ka hor waxaa la aasaasay beeraha Baabil ee laalaada, looguna yeedhi jiray xadaa'iqu Baabil almucallaqa, waxayna u ekayd janno ku dhex taalla saxaraha oomanaha ah, khilaafsanna dhammaan qawaaniinta dabeecadda. waxaana dhisay boqor Nabuukhadnasri, wuxuuna hadiyad uga dhigay xaaskiisii Simramis kadib markii uu boholiyooday dalkeedii iyo kaymihiisii, wuxuuna u dhistay calaamad ugu noqotay ixtiraamka, jacaylka iyo booska weyn ay agtiisa ku leedahay. waxaana lagu magacaabay beeraha laalaada sababtoo ah waxay koobsatay oo ay ku fadhiday oo ay gaadhsiisnayd hareeraha daaqadaha sare ee qasriga boqortooyada, waxayna kaga wareegsanay jihooyinka oo dhan, waxayna ahayd muuqaal soo jiita dadka daawanaya, shabahdana qayb janno ah ku dhex taalla dhulkaas oomanaha ah, waxayna ka koobnayd dhammaan noocyada kala duwan ee ubaxa iyo dhirta. biyahana waxaa ka soo qaadi jiray webiga agab loogu talagalay, waxaana lagu kaydin jiray qaybta sare ee beerta darbiyood baaxad weyn si loogu waraabiyo beerta. waxaana xusid mudan in nin quri yahay ka naqshadeeyay dhismaha beertan, waxaana laga dhisay dhismaheeda qaybo ka mid a dhagaxaan qaaliya iyo macdano kala duwan, taasoo taariikhyahanada qaar ku kaliftay inay ku tilmaamaan dadkii hore inay inaga maskax badnaayeen labalaab, ayna aad u adag tahay in la fahmo sirta ka dambaysa ilbaxnimadooda.
waxaana ku yimid towraadkii qadiimka ahaa iyo kutubta taariikhda in bini'aadamku ahaa qaar ku wada hadla luqad qura ayna u istaageen dhisidda magaalo uu ku yaalo dhisme aad u dheer oo uu gaadhayo dherarkeedu dherarka buuraha waxa uuna ahaa mid ay aad u hagaajiyeen dhismaha ilaa ay ka dhiseen halkiisa u sarraysa macbad kaasoo lagu xardhay dhammaantii dahab wuxuuna ahaa muuqaal faneed ay aad isugu faanaan wanaaggiisa iyo dhismihii quruxda badan waxayna tilmaamaan kutubta qaarkood inuu dhismahaasi yahay dhismihii baabil ee weynaa waxaana ku yimid towraadkii qadiimka ahaa fasalkiisa 1 xaashadiisa 1 ilaa 9 in dadkii dhisay burjiga baabil uu asalkooda u noqonayo tafiirtii nabi nuux calayhi salaam kadib markii ilaahay ka badbaadiyay duufaankii weynaa waxaana la tilmaamaa in magaalada baabil lahayd derbi ama dayr dherarkiisu gaadhayo 350 fiit adkaantiisuna ahayd 87 fiit waxayna lahayd 100 albaab oo ka samaysan dahab waxaana loo sameeyay albaabada iyadoo laga ilaalinayo magaalada weerarada cadowga sidoo kalena waxay siiyeen magaalada haybad iyo awood ka difaacda cadowga wayna ku kala duwan yihiin riwaayaduhu xaqiiqada dayrarkaas iyadoona aan la helin raadad cadcad oo ku saabsan xaqiiqada dayrarkaas iyadoona ay sabab u tahay weerarada badan ee ay la kulantay magaaladu waxaana lagu tiriyaa kadinka cashtaarta ugu caansan kadinadii ku yaalay magaalada taasoo ahayd kadinka laga galo magaalada baabil raadadka ilbaxnimo ee baabil kuma koobna inta aynu ku soo xusnay mawduuca balse waxaa jira in badan oo ah raadad ilbaxnimo sida taaladii xamuuraabi iyo taaladii libaaxa iyo macaabidi waaweyn oo laga dhisay magaalada baabil waxay ka mid tahay 7 cajaa'ib ee waaweyn ee dunida si aan gorgorta lahayn waana sida ku xusan ilbaxnimada Greegii hore fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir kanaalka